kulan tacsiya oo ay isugu yimaadeen badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco badhasaabka gobolka Maroodijeex xubno ka mid ah gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale ayaa guud ahaan qaranka Soomaaliland ka tacsiyadeeyay geerida badhasaabkii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ku geeriyooday wadanka Turkiga oo maalintii shalay loo qaaday mas'uuliyiintan ayaa si gaar ah tacsiyo ugu diray eheladii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumku gudoomiyaasha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ama badhasaabada gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland haliyay qaali ah inaga baxay maanta oo runtii geeridiisu ay naxdin badan inagu keentay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dhamaanteen geeri baynu ku qoranay waynu wada dhimanaynaa waynu kala horeynaynaa samir iyo iimaan eheladii iyo asxaabtii iyo dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iyo iimaan ka siiyo isagana waxaynu ugu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadii firdawsa inuu geeyo nin qaali ah oo runtii oo wanaagga iyo samaha ka shaqeeya oo taariikh wanaagsan kula Soomaaliland waxaan tacsi tiiraayo leh aan la wadaagaynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga guud ahaan waxaan uga tacseenayaa qaranka gaar ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan ehelkii familkii asxaabtii iyo ahbaabtii dhammaan uu ka geeriyooday aanu ka mid ka ahayn waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaan marxaati ka nahay inuu ahaa shakhsi muxtarim ah oo runtii afgaaban oo cibaado badan oo runtii aad iyo aad u wanaagsan ayaanu marxaati ka nahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto Xamse Maxamed Cabdi oo ahaa gudoomiyihii gobolka Togdheer wuxuu ahaa dhalinyaro ah aad iyo aad baan ugu aqoon dheeraad ugu lahaa muddo ku siman 36 sanadood ka hor ama 35 sano ka hor ayaan macallin u ahaa Xamse Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raaliha ka noqdo waxa uu ahaa nin dhalinyaro aad u firfircoon afgaaban oo dambi yar buu ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa in khadaayaadkiisa iyo dambiyadiisa wixii yaryaraay ka dhacay maanta way naga hooseeyay waa meeydi in Ilaahay u dhaafo inagana samir iyo iimaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga siiyo waxaanu leenahay eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii xaaskii caruurtii iyo qaranka Soomaalilandba waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah inaga wada siiyo way naga wada dhintay gaar ahaan reer Burco ama gobolka Togdheer Ilaahay samir iyo iimaan inaga siiyo Ilaahay janna firdawsaha geeyo Ilaahayna kitaabkiisa gacanta midigta ka saaro waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay jannatul firdawsaha geeyo Ilaahay qabriga ha waasiyo Ilaahay waxaan ku bareenaa inuu Ilaahay jannatul firdawsa hal mar labaad ka tacsiideynaya shacbiga gobolka Togdheer iyo shacbiga reer Soomaaliland runtii Xamse ilaa uu doono intuu gobolka badhasaab ka ahaana wax badan buu ka qabtay gobolka oo lagu xusuusan doono runtii oo isku wada gobolka anoo moogtay runtii hogaamiye dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan ayaan ku tacsiyadeynaa insha Allah billahi kariim marxuumka waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto qof walba saacadiisu geeriyoonaya kullu nafsin daaqatul maut naf kasto Ilaahay abuurana moodka wada dhamanaysa marka waxaan leenahay Ilaahay godka ha u nuuro su'aasha qabriga Ilaahay ha u fududeeyo nin nabadgelyada iyo wanaagga iyo deganaanta ku suntan buu ahaa waxaan leenahay jazaakallahu Ilaahay godka ha u nuuro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Ilaahay jannadii firdawsaha geeyo aan leenahay Ilaahay jannatul firdawsaha ka waraabiyo waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan eheladiisii baan si gaar ah ugu tacsiyadeynaynaa Allah u naxariistay marxuum Xamse Maxamed Cabdi ayaa muddo 2 sano iyo badh ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer isagoona hore u ahaa gudoomiyaha gobolka Gabiley Mahad Cali Goodir Star TV Burco